dhibaatadu ka soo gaadhay dhacdadaasi maanta ka dhacday markaaha waxaa ka mid ahaa maxamuud sheekh muuse cumar oo walaalkii lagu dilay rasaastaasi waxaana uu isaga iyo goobjoogayaal kale oo welibana goobjooga lagu magacaabo cabdicasiis cumar cabdi ay u warrameen xuseen barre aadan waxaana hadalka ku horumaraya maxamuud muuse sheekh oo ka warramaya sidii walaalkii u dhintay. haye walaal magacaaga ii sheeg. waa maxamuud sheekh muuse, waa wiil ila dhashtaa ku dhintay. bal waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen? ciidamanka amisom subaxnimo kusoo kala ahayn magaalada, marka wiilkan iyo wadaad kale duqoabada oo beeraha usii socdaana magaalada afkeed ay ka qabteen ee meel geeyeen oo meeshaas ay ku toogteen. marka maxay ahayd sababtay u toogteen? ilaa iyo hadda waxaa la yaabanyaa sababta ay u toogteenna la yaabanax. waayahay wiilka walaalka ah qof arday miyuu ahaa mise qof iska beeraley u ahaa? waa nin iska beeraley oo 45 jir ah iyo wadaad oo 85 jir ilaa 90 jir ah. marka qaabka dilku u dhacay bal iga waran, ma inta magaalada ay soo galeen bay rasaas fureen mise dad ay ugu talagaleen bay ku furayeen rasaasta? rag qaarkood guryahay ugu galeen, iriday ku jibiyeen, way soo baxsadeen. mid rag dhalinyaro ah oo xataa oo rag sheegto haweenaada masaayaraada way dilaan, waxay il saaraan way dilaan. marka ma dad ay ku raad joogeen ba mise wixii kasoo horbaxaba way dilayeen? maya, wixii kasoo horbaxa wixii guri ku jiray soo baxsanaa, wixii guri ku jiray soo baxsanaayeen oo nin guri iska jiifo oo qabar daaro macawiisi garan iska wata iska dilayeen. dilka walaalkaas sidee ku war heshay adigu, sideed ku ogaatay? waxaanu ku ogaanay mid kale ila dhashtaa looda waday, isagoo looda sii wada wuxuu arkay khaladka saaka oo juuniga iyo raashinkii oo qaatay oo beeraha u qaatay oo arkay kabacdii oo dhahay ninki waa qalabkiisa waa kanaay meelo ka baxa war lagama hayo anaguna soo wacay. anaga sidaasaan ku ogaan xabadaha kor ka dhacaayo, sidaasaan ku baxnay. marka marxuumka walaalka ee dhintay ma la aasay? waa aasnaha hadeertaan aasna. waa tay sidee idinku ogolaadeen marka in meydkiisa la idin siiyo mise banaan buu yaallay? meel banaan, meeshay ku dileen waa ugu tageen, markayba dileen oo naf baxay waa ka tageen. magaalada hooste dhanka kale ka galeen. anaga markaas dhanka meesha intaan ka qarsanay labada isaga iyo ninka wadaadkii dhuka ay dileen meeshaasaan kasoo qaadnay. laba wiil kale oo dhalinyarona meesha yiileen, eegana dadkooda yimideen, eegana meesha ka qaadeen. eega markaas xarunta kale oo magaalada dhexdeeda ku taala meeshay galeen. markaas waa saldhiga oo booliska oo joogo. mayd intee ku aragtay marka xabaalaha markaad tagtay? tira intee loo meygaad indhahaga ku aragtay oo dad geeriyooday ah? oo inta geeriyootay hadda 16 qof inta hadda oo geeriyooto oo dhammaan la isku wada sheegay magaalada marka gudaha lagu dilay inta banaanka lagu dilay. waa tahay dad ay xireen ama ay qafaasheen oo ay kaxaysteen ma jirtaa? ha, dad hadda ay xireen indhaha ay xireen oo xarunta oo saldhiga magaalada dhexdeeda ay wadayna jiraan. waa tahay maamulka gobolka amaba ciidamada dowladda federaalku ma joogaan marka gobolka ba ku sugan yihiin? wax maamul sheegta ma joogo, wax ciidan oo dowlad oo federaal ah waa labo meel oo amaana arkin. xataa maalin walba waxaa mara afrikaantaana maraan aragna amaana ciidan dowlad iyo ciidan maamul ma aragna. waa tahay marka kasokow dilka wax dhibaato kale geysteen ma jirtaa? mar walba ciday qabtaan waa sida ay garaacayaan keliyaalkay ka fiiriyaan, qaar way dilaan, oday way ma dhahaan, waa anid yar way ma dhahaan, waxay arkaan dilaan. naagaha xataa kama shaqeeyaan, waa qaar maanta dilka naagaa ku jiraan. waa tahay carruur ma ku jirtaa? maya, carruurtii yar kuma jirto, naaga way ku jiraan, laba naag waa la sheegaya inay ku jiraan. marka ma gurigooda lagu dilay gabdhaha mise macnaha meel banaana laga helay? naagahaas waa naagaha oo jaawaha soo gurto oo banaanka beledka u baxo, jaawaha soo gurto oo qoryaha ay gataan soo gurto. magacaaga oo saddexaad? magacayga waxaa waaye cabdicasiis cumar cabdi. waxaad joogtaa magaalada marka miya? ha, goob jooga magaalo markaan ahde. sidee wax u dhaceen bal marka faahfaahin naga sii. saaki ciidamada afrikaanta fal ay ku sameeyeen magaalada marka, ma fahante? waaye maxay sameeyeen? magaalada marka waa soo dhaqaaqeen, saaki xaruntii kasoo dhaqaaqeen, waxay soo koreen buurahi, markaasay isku dayeen inay magaalada duqeeyaan. marka maxay tahay sababtu? sababta ilaa hadda lama garanayo. saaki way kusoo dheelameen magaalada, marka waxna loo geysan ma jiro. laakiin wararkana soo gaaray waxaa la sheegayaa in iyaga marka hore la duqeeyo oo la weeraray. waxaasi ma jiro, waxaas waa war iska soomaaliya. waxa waaye magaalada marka ciidamada afrikaanta waxay ku hayaan dhib weyn, aad iyo aad weyn. waan gartay. adiga marka maxaad aragtay? anugu maanta waxaan arkay goobjooga aan sheegi karaa maanta 12 qof oo meyd ah. halkeed ku aragtay? magaalada bartamaheeda mise banaankeeda? meydka xaafadaha ay ku guryahooda kala soo adiga waa is dul saareen meydka. marka ma guryo ayay bartilmaameedsanayeen mise dad gooni ay bartilmaameedsanayeen mise rasaasta way furayeen? ma jiro wax bartilmaameed ah. waxa ciddii ka hor imaada, ha noqoto dumar, ha noqoto rag, dhammaan way leynayeen. waayo dhacdada maanta dhacday goormay bilaabatay, goormayse dhamaatay? dhacdada maanta waxay dhacday 12 subaxnimo, waxayna dhamaatay 3 subaxnimo. wax iska caabina ama cid la dagaalantay ma jirtaa marka? wax iska caabina ma jiro, cid la dagaalantayna ma jiro. ayaga waxay doonaan sameeyeen, cidi rawan way dileen. in adiga waa saldhiga u kaxeyseen. waa tahay adigu cid aad garanaysa oo dhimatay ma jirtaa?
waa jiraan in badan dhammaan wax la yaqaano waay adii dadka si masaakiin ah oo iska xoogsado waay dad in kawaanka shaqeeyo in xamaali ah adii dad waxay bartilmaameysan oo iska maskiin adii iska danyar. dadweynaha magaaladu sidee markaa arrintan u arkeen, sidee u hadal hayaan? dadweynaha magaalada aad iyo aad bay u cawshanayaan, aad iyo aad bay u xun yihiin dilka maanta ku geysteen magaalada. marka ma markii ugu horreysay arrintani dhacdaa mise marar kale ayay sidan oo kale dhacday? waa marar badan ay dhacday inay rag masaajidka kala baxeen ay toogteen rag badan adi waa dhacday. hadda halkay ku sugayeen marka hadda ciidamadii amisom? hadda ciidamada adi xaruntooda ay galeen xaruntooda. marka ma dad bay hore usii kaxaysteen oo maxaabiisa? ha dad duq iyo waxyaabahaasay kaxayseen, duq bay kaxayseen, dhalinyarana way dileen. waayo ma laga yaabaa dhalinyaradaas la bartilmaameedsanaya inay ahaayeen dhalinyaro taageersan al-shabaab? waxaas ma jiro dadkaas adigana sida hore aan kugu sheegay dadkaas maanta wuxuu yimaadeen inay reer markao dhan dhulka dhigaan.